الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله وايد سنة وولاشين أميرة let's مانتا إن شاء الله نبرنا وحير وسهل إنجليش إن شاء الله مانتا نسود هذا لمانتينا والله let's go برا English let's learn the quickest and the easiest way to use I, my, me, my and myself let's learn and برنا the quickest سيدا فضود أمو رقصيدات بدن and easy وسهل way to use والله استعماله I, my, me, my, and myself. So let's start. Let's unbelawin I and me. Ayan kabilawin. I. So what is I? I is the subject. I waxay tahay the subject. What's the subject? Subject is the doer. Subject waa kan hawsha qabanay ama waxa suubinay waxa waayaan waa the person qofka who does the action. Qofka waxa la qabanaya suubinay ayaa subject la dhahaa. So this I waa subject. I waa the person who does the work. In fact, I is the subject. Subject waa my subject is the doer. Qofka hawsha qabanay waa the person qofkaas who qofkaaso does the action. Action ka la qabanay oo suubi inshallah. We'll continue guys. Let's learn me. So what is me? Me is the object. Me is object. So what is the object? Object is the receiver. Waa helaha. waa the person qofka who qofkaaso receives the action waxa dhacayo qofkii ku dhacayaan ama qofka helayo lagu suubiye ayaa receiver ka ah this person me is the object and object muxuu yahay is the receiver waa kii helay or wuxuu noqonayaa the person qofka who receives helay the action wixii dhacay qofkii ku dhaceen ayuu me ay noqonaysaa inshallah let's continue guys example subject. Subject's always the doer. Kan wax suubinay. So I, aniga, gave Abdi a pen. Aniga ayaa Abdi qalin siiyey. So I gave Abdi a pen. Who's the subject? I am the subject. So I gave Abdi a pen. So the object muxuu noqon object waa qofka receive garay oo hela alaabta. Abdi gave me a pen. Abdi gave me a pen. Abdi wuxuu siiyey qalin. So I who received I receive me. So that is the receiver. So I am the receiver now. Okay? So waxaa kaloo dhihi kartaa Abdi gave the pen to me. Abdi gave wuxuu siiyey the pen qalinka to me. Aniga ayuu siiyey. So I am still object. Okay? See? I'm object here. And right here I is always subject. I is the doer. Qofkii wax suubiye. Now yaa wax lagu suubiye? Me. Aniga qalinka la siiyey. So I'm the receiver. So now who am I? I'm object. Marka saas ogaada. I gave Abdi a pen. Aniga ayaa Abdi qalin siiyey. I am the doer. Qofkii wax suubiyey ayaan ahay. Maxaan suubiyey? Qalin ayaan Abdi siiyey. So now object waa maxay? Object receiver. Wixii la suubiyey, qofkii lagu suubiyey ama qofkii helay ayaa object noqonayo. Marka Abdi gave me a pen. Abdi wuxuu aniga i siiyey qalin. Or waxaa dhihi karta Abdi gave the pen to me. Abdi gave wuxuu siiyey the pen qalinka to me ayuu siiyey. So both here and here waa qofkii wax lagu suubiyey oo wixii qalinkii la siiyey is me. So now I am an object. Marka saas aad ogaanaysaa the doer is always a subject. Waa qofkii hawsha qabtay. Kan objectin waa qofkii receive gareeyay hawshii la qabtay receive gareey. Saas ayaa u kala xasuusanay inshallah. We'll continue inshallah. Continue. I think sorry haddaad maqlaysin pianada ciyaalka pianiska ciyaaran shaar karaa lahaada hoos ayaan ka su'aada but still I can hear it anyway waxaan rabay inaan idin maanta iskool mala fasax ayaa la leeyahay marka inshallah walaal let's continue casharkan walaalayaal okay now waxaan isticmaalayna multiple being means more than one person awal kaliya I Abdi waa mogta now laba qof marka isticmaalaysid still the rule the same kujada multiple subject and object marka multiple subject object still are the same sharcigii aad ku dhaqmaysay isma bedelaayo ma fahan so let's idin aqri wa fahmi doonaa Abdi and I so now we are multiple more than hal qof multiple waxa la wixii hal ka badan multiple so Abdi and I saw the teacher at the mall aniga iyo Abdi waxaan aragnay macallimadeena at the mall meesha suuqa mallka ayaan ku aragnay so who's the subject Abdi and I ma dhays Abdi and me Abdi and I because I always subject Abdi and I also marka isticmaalaysid adiga I and Abdi ma dhays always qofkaas horbarinaysa and I maadaama aad adiga aad hadlayso speaking I ana hadlayso
Abdi and I qofka markaas hadlaya ayaa always inta maraya saas ogaada Abdi and I saw the teacher at the mall Abdi aniga waxaan aragnay macallimada ayaan waxaan ku aragnay at the mall mallkaan ku aragnay so Abdi and I we are the subject waxaan nahay qofkii aragtida wax arkaya qofkii wax suubiya ayaan nahay sababta we are the doer we are the one who suubina insha Allah then the teacher called Abdi and me macallimadii wayna wacday the teacher called Abdi and me macallimadii Abdi aniga ayayna wacday so muujeeda now I'm object I become me here I was subject I was I here I'm object me and now multiple waxaan nahay halka badan so the teacher called Abdi and me weligaa ma dhays the teacher called me and Abdi maya yaa hadlaaya the teacher called me and Abdi this me adiga hadlay so you have to keep always right here the teacher called Abdi and me macallimada waxay wacday Abdi iyo aniga ayayna wacday so who do we are wixii la qabanayay dadkii uu ku dhacay ayaan nahay now we are object marka saas is so easy to understand subject always qofka waxa suubinaya wayaan objectin wuxuu noqonayaa wixii la suubinaya qofkay ku dhaceen ama lagu suubiyay ayaa noqonaya marka walaal saas u socda waa sahal wayaan insha Allah qaybta kale waa idin soo wada qayb baa idin koog waa mahadsantiin isgaarsiya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته